farxad weyn oo ah in culimada ka socoto wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Somaliland ay maanta nagu soo booqdeen xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha taas oo ahayd arrin faatib ah oo sanad walba bisha Ramadaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ay maraan xafiisyada wasaaradaha ama xarumaha dawladda oo dhan iyagoo oo xasuusinaya bisha Ramadaan fadaayisheeda iyo khayraadka ku jira Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin waanadu waxay anfacaysaa kuwa muuminiinta ah waxaan Ilaahay ka baryayaa in kuwa wixii ay noo sheegaan weeleeyo oo faamal falayda ah in naga dhigo inkastoo aan shaqaaluhu mar walba ay bisha Ramadaan inta ay gudashada shaqadooda ku guda jiraan ay mar walba aaladahan baraha bulshada ay kala socdaan wixii wacdi ah haddana inaad noo timaadaan oo aad xafiiska soo booqataan sharaf weyn bay noo tahay waxaan ku soo dhaweynayaa culimada oo iyagu waajibaadkoodii insha Allah halkan ay u yimaadeen nafari doona in kala hadli doona dhankooda culimada ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa halkaasi muxaadaro ku saabsan fadliga ay leedahay bishan barakeysan ee Ramadaan uga jeediyay shaqaalweynaha wasaaraddaasi sida wagaasimuhu sheegay wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxa ay go'aamisay inay bisha Ramadaan xarumaha dawladda ay soo wada booqato ay soo marto iyadoo markaasi gaarsiinaysa ama doonaysa inuu bayaaniso ahkaamta bisha Ramadaan iyo fadaayisha ku duugan si ay ugu faahfaahiso ama ugu cadayso una xasuuso dadka markaa muslimiinta iyo inteende maxaan ku dhahay joogto wasaaradaba inay ka faa'iideystaan oo ayna fursada weyn ka dayacin sida wadeed maanta ka wasaaradaha idinku waxa fursad u heshay nasiib inay maanta idinla yimaadaan idin soo fadhiistaan ilaahu kuwa khayrka tabcada haynaga yeelo wuxuu rasuulku kaleey salaatu wasalaam malakul jibriil baa u yimi waan habaaramayaa aamiini dhabu nabi maxamed kaleey afdal salaatu wasalaam waan ku oran buu yiri wuxuu yiri Ramadaan qofka ay u soo gasho ee isagoon loo dambi dhaafinay dhamaatay ilaahay naarta geliyo ku fogeeyo waa malakul jibriil nabiyullaahi maxamed kaleey afdal salaatu wasalaam wuxuu yiri aamiin waladeeg sayyidul malaa'ika wa sayyidu bani aadam ayaa midna habaarkii midna aamiin yiri maxaa u malaynaysaa qofkaas baxsanaya ka kale labadiisii waalid qofka soo gaaray ee aan u samafalin ee ducadoodii la harin ilaahay naarta geliyo ku fogeeyo